miisaaniyadda 2020 marka ka xukuumad ahaan waxaa ku sifaysan hiigsiga iyo horumarka dalka ugu horeyntii waxaa askari walba oo ciidamada qalabka sida aad maqasheen loo kordhiyay $70 taasoo qoondadiisa ka dhigaysa $100 oo mushaar ah 30 raashin iyo 70 loo kordhiyay 200 iyo 30 raashinka loogu sameeyo xerooyinka ay degan waa bilow fiican laakiin waxay naga astaahilaan nuguna leeyihiin intaas ka badan taasoo macnaheedu yahay marka waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeena kadib shaqadii dheereed ee dib habeynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno waa sanadkii ugu horeeyay waa bilow waana la sii wadi doonaa waxa kale oo miisaaniyaddu kaliya ay wax ku kordhisay arrimaha waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dib u dhiska dalka oo kaliya dhammaan xafiisyada dawladda oo soo codsaday in la kordhiyo kharashaadkooda oo ugu horeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha kan madaxweynaha kuwa guddoonka baarlamaanka wasaarad walba hay'adaha dawladda kulligood hal shilin looguma kordhin inta aan ka ahayn inta aan hore u soo sheegay miisaaniyaddu sidaas daraaddeed waxay tilmaamaysaa dawlad ahmiyaddeedu ay tahay ammaano iyo adeeg marka miisaaniyaddan waxaan ku tilmaamaynaa in hadafka 2020 dalka ay u jiheynayso wax la yiraahdo ammaano iyo adeeg waxaan rabaa golahayga wasiirada inaan uga mahad celiyo shaqada xooggan oo ay dalkan u soo qabteen haddii marka dadka qaar aanay aaminsanayn shaqada aad dalkan u soo qabateen markii aad wadanka imaanayseen 168 milyan ay ahayd miisaaniyadda ugu timaadeen maanta waxaad ansixiseen 460 milyan oo dollar number saxa boqolkiiba 174 in ka badan ayay kor u kacday oo macnaheedu waxay tahay maysan timaadeen shaqadaas hadaad idinku qabanina العلس مركب انت ودنك aad joogteen in ka badan 70 milyan ayaa sanad walba kor u kacaysi oo sanadka hadda ugu dambeeyay oo ahaa sanadkii xoog ugu badan uu galay oo aad kordhiseen 120 milyan oo dollar dakhliga soo galay dawladda waana ku mahadsantiin hadii marka shaqada aan wadno aan sii wadno oo Febraayo dalka deynta laga cafiyo meesha aan ka tirinayno maada iyo malaayiinta waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo billions hadii ilaahay yiraahdo waana mahadsantiin